madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cali Ow Cabdi iyo wafdi culus oo hogaaminayo iyo sidoo kale salaadiin waxgarad waayeel aqoon-yahan ayaa ku sugan degmada Ceel Afweyn waxaana laga wada hadlayaa xaaladda nabadgelyo ee degmadaasi Ceel Afweyn oo sanadihii la soo dhaafay aan aad u fiicnayn inkastoo marar badan ay galeen xubno culus oo kala duwan oo isugu jira dhaqan culimaawidiin iyo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland haddana wali waxay taagan tahay halkeedii hore waxa laga yaabaa in shirkan uu noqon doono shirkii lagu soo gabagabeyn lahaa marxaladda colaadeed ee kolba ka soo cusboonaata degmadaasi Ceel Afweyn ee gobolka Sanaag haddaba hadaladii halkaasi laga soo jeediyay maalinimadii shalay toole waxa kamid ahaa kuwan walaalayaal labada reer waxaan leeyahay waxaanu idinla joognaa ee bisha Ramadaan aanu idinla joognaa waa dareen waa damqasho waa dadnimadiina inay soo noqoto danta Soomaaliland ay ku xiran tahay way haday fartu ku bugto jirkaagu ma seexan karo war Ceel Afweyn Soomaaliland bay kamid tahay meel weyn bay kaga jirtaa hadii ay bugto Soomaaliland baa bugta ku talagala damqashaanu idinku nimidnay dareen baana wada islaamnimaana wada alla ka cabsi baana wada xaq baad nagu leedihiin in la idin dhex galo xaq baad nagu leedihiin intiina halka joogto in badan imiga intaan joogaan isbaranay marka boqor Cusmaan laga bilaabo boqor Axmed lagu daro intiina kale war meeydaan kari waayin meeydaan ka sii waayin laakiin waa isku muuqateen iska ilaawa wixii tagayna ilaawa meel cusub ka bilaaba intii dhimatay soo noqon mayso intii waxyeel la gaadhay soo noqon mayso war inta dambe hal la badbaadiyo taariikh ka taga ilmaha dhalan doona iyo kuwa yaryar taariikh uga taga shirkiina waa nabadayntuna waa inoo furan yahay ilaahay wax khayr qaban hayno uga dhigo nabada ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu gacmaheena iyo carabkeena iyo ficilkeena ilaahay ku dhaliyo oo ilaahay uu diisayna oo ilaahay la qabto anaga waxaan la gudboon inaanu ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu kaga baqno waanu aad ugu dadaalo hawshaas sidii aanu siday cadaalad ku jirto aanu gartaasi aanu gaarsiin lahayn ilaahay baa wadaana ilaahayna waxaanu weydiisanaynaa ilaahayna waafajiyo waxaan mar labaad idinku codsanaynaa xigaan baati wax dhexmareen Soomaalidu waxay tidhaahdaa xigtaaya xasuustaa waa lama xidhisho war wixii aynu hore isku soo darnay iyo waxyaabihii dhacay ninkii duwaaga wanaag ka shaqay kara maayo waxaan leeyahay oo aan mar labaad idinku codsanayna inaad soo dhaweysaan qalbiga furtaan tobankii dambaynu gelaynaa ilaahay xasuusataan sidoo kale Ceel Afweyn nasiib labaad bay leedahayo mudane madaxweyne degmada Ceel Afweyn waa degmadii xukuumaddan cusub lagu dhisay maanta waxaanu aragnaa in abaalkii aanu gashanay haddaanu heer Ceel Afweyn xukuumadda in maanta midhihiisii aanu hayno oo madaxda qaranka u sareysay halkan u fadhido sidii xaajadii Ceel Afweyn ee muddada badan xalka loo waayay loo dhameystir laayay halka u fadhiya waxaan anugu dareen gaar ah maanta ay ii muujinaysaa ama ii muuqda oo runtii farxad iyo qiiro gaar ah leh waayo ma arag intii aan arrimaha nabadaynta soo waday arrin in hal mar ballan inta la qabto siidhiga la isu tumo oo sidan oo kale ay isu soo dhamaadaan dhinacyadu hore uu lama kulmin arrinta alxamdulillaah rabbil caalamiin mudane madaxweyne ku-xigeen ilaahay baa ku aqbalay maanta reer Ceel Afweyn shaqaaqadu intii ay ka dhaxaysay iyo intii u ehelka ahayd ee guriga xigtay maanta cid ka maqani ma jirto waa dhammaystiran tahay alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay aanu mahadnaqno haddaanu nahay wasaaradda arrimaha gudaha go'aanada soo baxa oo aan in badan dareensanaa in fulinteeda xukuumaddu ka warwareegi jirtay
go'aanada soo baxa ee halkaa ka soo baxa inaanu fulinayno oo aanu fulin doono insha Allah bidnillaahi alkariim oo wasaarad ahaan maadaama aanu wasaaraddii nabadgelyada qaabilsanayd aanu nahay amnigana qaabilsanayd aanu go'aanada shirka ka soo baxa fulin doono aanan waxba hagran taasaanu ballan qaadaynaa oo ilaahay hortiisa aanu ka ballan qaadaynaa oo wixii halkaa ka soo baxa aanay hadhowtaba labada beeloodba aanay qadhaadh ku noqon waayo gartu laba kama wada qorsisaaleeyay wixii arina ee lagu heshiiyo inaanu dabagallo oo dabagelkeeda aanu yeelanno ilaahay waxaan ka baryayaa madaxweyne ku-xigeenka waa markii ugu horeysay ee madaxweyne ku-xigeen arrinta nabadgelyada uu soo galo waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ku guuleeyo oo isagana halkaa wuxuu fadhiyaa in uu daacadnimo iyo qalbi wanaagsan ayuu ku fadhiyaa in ilaahay taa ku guuleeyo madaxda kale annana waxaa naga ballana sidaa labadaa sannadood iyo barhkaa aanu nabadgelyo ugu fadhinay oo sugaalka u ahayn inaannu maantana nabadgelyadiina hayno sugaal ahaanno wax dhiba oo aanu geysanaynaa ma jirto cid aanu waxyeelaynaana ma jirto nabad baan anagu diyaarnay bilaa shuruuda dowladda cusubna aad baan ugu mahad celinaynaa waa la shaqaynaynaa maanta waxaanu rajaynaynaa ilaa xafida suldaan maxamuud guuleed iyo guddiga oo runtii waqti badan ceelfoyn ku soo bixiyey sidaa ay u ballan qaadeen wixii aqoon la'aan isrijisaa waa meesheeda laakiin gar cad oo la yidhaaho waar waxaasaa reer hebeladooda qabtay qoladiinnana waxaasaa ina qabtay way soo dhammaatay labada beelee walaala ah 10 sana lagu soo waday mar kaliya wax la yidhaahaa war qoladaasuna waxaasaa ku qaldantiin idina waxaasaa ku qaldantiin baanu mar kaliya guddoomadeenna soo dhaafi ka weyn waxaan jeclahay inaynu u hoggaansanno guddidu ajandaha inoo qabato iyo wakhtiga inoo samaysato dhammaanteen waxay inoo ku hagaagayaan inaynu u hoggaansanno dabacay wax ku leeyihiin nin dhintay inoo soo noolaan maayo xeerarkaynu lahaynay wanaagsanay inaynu ismari jirayna aynu ismarino haddaynu ilowno xeerarkii wanaagsanaa aynu ismari jiray iyo dabcintaynu iska dabcin jiray ninka maalintaa xaajay u taagan tahay xaajadiisa adkaysto ligliga haysta waxba inoo hagaajin mayso waxna inoo dabcin mayso anigu waxaan leeyahay dadkan aanu dhib yarayno innagaa halkaa isugu bixi jiro wax soo dhammaysan jiray haddaynu doonayno inaynu ummadda la mid noqonno la jaan qaadno bulshooyinka kale waa inaynu tusaale nool inoo noqotaa dhibaatada ayna soo gaadhay oo aynu taladeeda iyo go'aankeedaba dib isugu noqonnaa 10 sano ee dagaaladu socdeen horumarkii Soomaaliland way ka hadhay ay waqtiga geliyaan si dawladda ugu la xisaabtami lahayd iminka dawladdu u soo jeeday iyagoo la xisaabtamayaan horumarkii wixii dhaafay ee laga isticmaalay miisaaniyadahoodii inay xisaabtanka iyo wacyiga intaa geliyaan nabadana sidii loo adkeyn lahaa iyo qodobada u adkeeya baan iyaga kula dardaarmaya ilaahay waxaanu ka baryaynaa arrinkaasi inuu inoo qabsoomo oo sida ugu khayrka badan leh ee danteen ku jirto ilaahayna sunsiyo dhammaanteen marka hore weynaynu isku kalsoonaanaa ilaahay ku kalsoonaanaa inagu isku kalsoonaanaa arrimaheena naseex iyo wanaag iyo sharaf iyo karaamo aan ku dhamaynaa horta marka hore waanu idin ducaynaynaa reer ceelaf weynow galbeed baanu ka nibi idin walaalihii baanu nahay waanu idin soo gurmanay khilaafkii yaraa iyo shaqaaqadii dhacday baanu doonaynaa meesha ka baxdo marka waxaanu sidnaa duco annagoo sooman annagoo guryaha iyagii ka nibi iska kaaya ilaaliya sharafay idiin tahay inay degaankii ugu horreeyey gobolkii ugu horreeyey ay ku timaado oo heer madaxweyne uu yimaado taasuna sharafay horta idiin tahay waxaanu doonaynaa inaynu haddaba maqalnaa awaamiirteeda waxqabadkeeda oo aynu u beddelaa dagaalkii horumar u beddelaa qorigiina qalin u beddelaa nabaduna dhinaceeda ka soconay qaramayntiina dhinaceeda ka soconay waa idiin fadhinaa qodobada halkan idinka akhriyay ee xukuumaddu ay idin akhriday ugu horeyso inaan hub la sidan karin lana soo gali karin inaan dirays la sidan karin in labada guddida garnaqsanaysa iyo guddida garnaqaysaana
ayaguna inta hawshaasi socoto aanay dhaqdhaqaaq samayn karin iyo in waxay guddidaasi soo saarto dawladdu ay 5% fulinayso kuwaasi waa go'aamada ay xukuumaddu kor joogtaynayso ay idinkuna celinayso oo aad doonayno inaad madaxa aad ku haysaan marka haddaynu waqtiga dheeraysanana inaga isku dheeraynay haddaynu dee soo gaabinana inaga soo gaabino waxaan ku soo gabagabanayaa madreer hadalkayga 9 sannadood baa dhibtan idin haysatay 9 sannadood bay dhibtan idin haysatay dhibtu idinka idinmay gaar ahayn idinku kuwa wax dilaya ee wax iska dilaya ahaydeen laakiin kuwan kale laftooda idinla deganee idinla ah ardayada idinla ahayna way idin dhibanaayeen oo dhibaatada idinla qabeen waanay ku dhimanayeen waxaanu kolleyba ku boorinaynaa xidhayaashana waa dhibtaa ay idinkuna dhibanaa u ahaydeen dee xidhayaashana ay u tihiin guddidaasina ay u fadhido idinkuna u labalaxaadsada inaanay halkaa sii dhaafin waxaanu ballan qaadaynaa inaannu ku shaqayno wixii ay nooga bahdaanna aanu fulinno 100% oo ay ugu horrayso awaamirta ay soo saareen oo ay ka mid tahay inaan qori iyo hubtoona lagu dhex sidan magaalada tan iyo dhawaaxigeeda shuruudaha kale ee la socda sida dirayska iyo waxyaalaha amniga u dhimayana aanan ogolaan doonin in magaalada lagu dhex sito sidoo kale sida boqor Cismaan Buurmadow sheegay dadka fidmadoolayashaana aanu gacan bira ku qabanno oo aanu ka shaqeynay islaaxa iyo wanaagga inta ka shaqeynaysa wanaagana aanu dhiiri gelinno inta xunna aanu gacan bira ku qabanno waankii baanu meel marinay labadii bilood halkaas ay codkii dhigeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku way ka jawaabeen waxay ku abaalgudeen iyagoo 3 bilood jirin inay noo yimaadaan waxay ku abaalgudeen inay qarabayntii ka bilaabaan gobolka Sanaag nabaddu waxay ku imanaysaa ciidanka la qaranay iyo horumarka waxay ku abaalgudeen inay nabadii noo dhex fadhiyaan oo labadii beelood dhex fadhiyaan oo amarkii soo baxay fulinayaan war waxaan u dooranay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka soo inuu adeecno maaha soo inuu la shaqeyno maaha soo inuu gacan siino maaha soo inuu waa ku dooranay xukuumin bay soconaysaa abtiyaal iyo seediyaal iyo adeerayaal waxaan soo jeedinayaa xukuumadda in la adeeco nabaddu horumarku wuxuu ku imanayaa nabad horumarku wuxuu ku imanayaa nabad oo la qaato inta aynu wada fadhiyo ee shirku socdo programkii wax ku socon lahayn iyo systemkii aynu u wada dhaqmi lahayn insha Allah ta'ala oo isku tixgelinayno kadib markii guddida ka kooban garxajis galbeed iyo habar jecel galbeed ee ceelaf weyn u joogta xalinta khashqaaqada colaadeed ee u dhaxaysa beelaha baho faarax biciide iyo idray sacad yoonis ay la wareegtay kalsoonidii labada beelood la wareegeen guddidu kalsoonidii labada beelood aad ba ugu mahadsantihiin si sharaf leh 40 iyo 1 qof baan 50 iyo 1 qof baan qolo walba ka qaadnay dhaariis ay la wareegeen labada beelood kalsoonidoodii waxa soo saartay qodobadan hoos ku qoran oo ah awaamiir la farayo labada beelood inay u hoggaansamaan inta arintooda ama khilaafkooda go'aanka dambays ah guddidu ka soo saarayso qodobka koowaad guddidu labada beelood waxay faraysaa inaan wax qori ah la dhex mari karin magaalada ceelaf weyn deegaamadeeda inaan waxba la arki karin sidoo kale guddidu waxay ciidanka qalabka sida ee qaranka ka codsanaysaa inay arintaas fulinteeda ku daba galaan labada beelood talaabada ku haboon ka qaadaan cidii u hogaansami weyda arinta ma aha ceelaf weyn oo kaliya ma arki karno qori deegaamada ka shaqeynaya hadii Ilaahay ka dhig taana ciidamada u xil saaran Ilaahay kariim qodobka waa ka qodobka labaad guddidu waxay labada beelood ku wargelinaysaa in garnaqsigooda uu ka bilaabmi doono dilkii darar weyne ka dhacay heshiiskoodii kadib iyo wixii dhibaatooyin ka dambeeyay oo kaliya oo aanay guddidu diyaar u ahayn inay ka garnaqdo wixii xilliga ka horreeyay dawadu waxay ka bilaaban doontaa haddii Ilaahay ka dhigo xilligii heshiisku dhacay wixii ka dambeeyay dilkii darar weyne ka dhacay iyo wixii uu xambaartay isagu qaaday ka dambeeyay buu qodobka labaadna ku saabsan inuu in garnaqsigu ka bilaaban doono hadii Ilaahay ka dhigo
qodobka saddexaad waxa weeye guddigu waxay labada beelood ku wargelinaysaa in qolo walba soo diyaarsato 3 nin doodaaya iyo 2 kaaliye oo xasuusiya wixii uu ka tago nin doodaaya iyo 2 kaaliye oo iyagu hadli doonin laakiin xasuusiya wixii uu isagu ka tago ama hala faqo ama dhagta ha u saaro insha Allah taala qodobka kale waxa weeye guddidu waxay ku wargelinaysaa dhammaan cidda ka soo qayb galaysa fadhiga dooda labada beelood inaan loo ogolayn mobile uu gudaha shirka la soo galo marka laga reebo 2 mobile oo guddidu ku duubi doonto dooda labada dhinac guddigu waxay ku wargelinaysaa dhammaan cidda ka soo qayb galaysa fadhiga dooda labada beelood inaan la ogolayn dhaqdhaqaaq shirka dhexdiisa iyo bixitaan banaanka loo baxo inta doodu socoto midna wax dhaqdhaqaaq waa reeban yahay haddayba dhacdo in qof u baahdo musqusha waa inuu idan ka qaato farta u taago wax dhaqdhaqaaq oo gudaha iyo wax dibadda oo loo baxo inta hawsha shirku xirmayo way reebanaan doontaa haddii Ilaahay ka dhigo marka si rasmi wax loogu furmaan waxa kale oo reeban inaan shirka dhexdiisa hadal qof aan la siinin uu ka hadlo waxa reeban sidoo doonaha u dhigo waxa reeban qof hadal la siinin oo hadla ka dhaxda shirka waa reeban tahay qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan guddigu waxay ka codsanaysaa dhammaan cidda uu khuseeyo shirka ama fadhiga dooda labada beelood inay waqtiga ilaaliyaan oo aan dib looga dhicin waqtiga lagu ballamo